waa maxay kheyraadka ay Soomaaliya ku fadhido? bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal aada u qiimo badan weeye lagama sheekeyn karo runtii kheyraadka Soomaaliya intay la egyihiin laakiin wax yar baan ka sheegaynaa waxay u baahan tahay barnaamij gaar ah inaad siisaan Soomaaliya marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa kheyraadka dabiiciga Ilaahay siiyay ka bacdina waxaan u soo gudbahayaa dadka iyo muxuu ahaa society Soomaaliyeed ama mujtamaca Soomaaliyeed marka ugu horeysa Soomaaliya waxay ku taalaa meel adduunka meelaha ugu muhiimsan ah oo jidka ganacsiga adduunka ah oo isku xira saddexda qaaradood ama afarta qaaradood ugu waaweyn adduunka saddex qaaradood andhaho Africa Asia iyo Europe meeshaas waxa weeye albaabka koonfureed ee badda cas weeye marka laba biyo mareen oo labaduba hadda muhiim yihiin ayay u dhaxaysaa midna waxa la yiraahdaa Baabil Mandab oo dhinacan Djibouti buu xigaa midna waxa la yiraahdaa Hormuz oo waa midka ka soo baxa Arabian Gulf ama Persian Gulf labadaba waa la yiraahdaa ka yimaada Khaliij al-Arabi oo Iran iyo Iraq iyo Kuwait iyo halkaas soo mara ilaa maxaa la yiraahdaa Oman meeshaas waa meel xudunta caalamka ah tijaarada ama ganacsiga adduunka waaga hore meelihii mari jiray weeye haddana meelaha ugu muhiimsan weeye waxaa muhiim ka sii dhigay batroolka caalamka ayaa u soo mara wadamada horumaray 40% batroolka halka ka soo baxa taas waa meel Soomaaliya markii la xisaabiyo dadkeeda iyo dunyada ay haysato nool waxaa la yiraahdaa qofka Soomaaliga ah waa qofka adduunka ugu qanisan xagga xoolaha nool ariga iyo geel iyo lo'da sidee u tahay taas haddii loo qaybiyo tirada xoolaha aan haysano tirada shacbiga Soomaaliyeed waxaan noqonaynaa number 1 qofka Soomaaliga wuxuu helayaa ilaa waxa la yiraahdaa 40 geela ama 50 geela 80 la 150 neef oo ari cid inta haysata ma jirto Soomaaliya waxay leedahay dhulka daaqo 125 weeye Soomaaliya ama waxa loo yaqaan muxuu ahaa dhulkan xoolo daaqan waxay leedahay dhulka beeraha waa ilaa 9 milyan ama 8.9 8 milyan iyo 900 oo kun oo hektar oo waraab ah dhul beeraha ku fiican Masar oo aad ogtahay 80 milyan tiradeedu inay tahay oo 10 jeer nagu soo laabanta waa 6 milyan dhulka Arab land galira ama irrigationka waraabka dhulka kale oo saxarada ah bay inta ciid lagu shubaa la beeraa waa 6 milyan annagana waa 8.9 ama 8 milyan iyo 900 oo kun oo hektar weey okay waxa soo haray badii waa cajiib iyadu sidaad ogtahay ama dadka inta badan og yihiin xeebta ugu dheer Afrika Soomaaliya iskale xeebtaasi dherer kaliya ma aha ahmiyadeedu waa dhulka biyaha kulul baa la yiraahdaa meesha malaygu u soo hijroodo waqtiga qabow oo ku dhalo weeye khaasatan Pacifica iyo dhulka qabow dhinaca qabow oo Indian Ocean ee markii qabowgu jiro halkaas yimaada waa shallow waters waa biyo hooseeya biyo macnaha qodadoodu aysan fogeyn weeye marka biyaha qodadoodu aysan fogeyn waxa ku badan oxygenka oo muxuu ahaa geedaha uu cunayo xayawaanaadka badda ku nool ay ku baxaan iyo ilayska qoraxda iyo degdeg u helaan haddii مثلا meelaha aad u dhaadheer badda geeda ma leh grazing ma leh meel ay kalluunku daaqa ma leh sababtu waxa weeye waa mugdi malahan ilaysgeedu waxay ku baxaan ilayskii oxygenka ku baxaan mugta iyo biyaha marka waxa la yiraahdaa daraasad waxaan arkay ay sameysay FAO ama ururkan cunnada adduunka oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysan waxa la yiraahdaa Food and Agriculture Organization waxay leeyihiin badda Soomaaliya waxay ku filan tahay kheyraadkeeda baddu 800 milyan oo qof 800 milyan oo qof waa tirada qaaradda Afrika oo dhan ku nool weey okay aanu nimaadno waxa dhulka gudihiisa ku jira hoos waxaas waxay u kala baxaan hydrocarbons iyo minerals waxa weeye hydrocarbonsku waa batroolka iyo gaaska iyo mineralska waxyaalahan dhagaxda dahabka diamondka birta shamiitada waxaas oo dhan waa minerals weeye dhulka Soomaaliya waa dihin yahay lama taabanin
daraasadii u dambeysay daraasad sir ah oo hadda soo baxday awal kutri kuteen iyo hunuunu baa jirtay batrool baa ku jira xagga waxaa ku jira gaas xagga daraasad dhaba oo runa oo geological survey la sameeyey oo laba dowladood isaga dambeysay Soviet Union iyo Mareykanku waxa ay leedahay badda dhulka Soomaaliya batroolka ku jira wuxuu la eg yahay haduusan ka badnayn batroolka ku jira Khaliij al-Arabi oo dhan starting laga bilaabo Yemen ilaa Iraq ilaa Iran waxaa la leeyahay dhulkan 18 milyan oo sano ka hor waa isku yeelay khaliijkii Soomaaliya isku yeelay Yemen khaasatan marka kala go'oodii dhulka hoos ma kala go'in dhulku hoos waa jira dhulka batrool ku jiro dhibadkiisa ama qodadiisu way isku xiran yahay kala go'aas waxaa loo yaqaanaa oo geologists-yaashu u yaqaaniin Davis fracture zone macnaheedu yahay waa kala go'a Davis nin yani geologist ah baa keenay moogtahay fracture zone halkaas uu ka bilowdaa ilaa wuxuu tagaa Seychelles halkaa marka batroolkaas nusna xaq uu u go'ay dhulka go'ay oo Carabta ayuu jiraa nuska kalena Soomaaliya ku jira ama batrool ha noqoto ama gaas ha noqoto waa buuxa waxa soo gala basin la yiraahdo Daroor basin Darren basin hadal Nugaal basin Sheikh basin waxa soo gala ilaa wuxuu socdaa dhulkan Ethiopian ku haystaan oo Soomaalida oo ugaadeen loo yaqaan ama Soomaali galbeed ilaa North East Soomaali ilaahay amarkiis inta Soomaalidu degan tahay weeye inta batroolka iyo gaas ku jira oo run ah oo cilmi ah oo aan jecelahay in xalaqooyin dambe ama silsilado dambe oo barnaamijyadiina aan ka soo daayo iyadoo oo aanan anigu sheegayn dadka ajnabiga ah oo Mareykanka sheegaya inta waxa dheer oo nicbaha ilaahay Soomaaliya si dad mida hal nooc diin dhaqan maxaa la yiraahdaa hadii alla ku roon yahay af hadii alla ku roon madhab taade waynu ognahay waa dad hal nooc wax Afrika noocaas laba dowladood baa jirta Botswana oo wadanka Afrika ugu nabad badan hadda iyo Soomaaliya ilaahay amarkiis Botswana waa Peaceland waa meel nabada Soomaaliya waa ujeeda Soomaalidu waxay ka midaysan tahay wax kasta مثلا سعود عربي وكلا ودمada carabta waxa waa midaysiin ba dadku u haystaan laakiin ma midaysan Saudi Arabia dadka ku nool waxa weeye qayb waa Shiica qaybna waa Sunni xagga diinta hadii rabaan afka isku mid ha noqdeen waana dad traditionally zoonan bay kala ahaan jireen intaan diinta islaamku iman dagaalo badan baa jiri jiray iyo xataa ka bacay diinta islaamka ka timidba Najd iyo Hijaz iyo la kala yiraahdo dhulkan moogtahay marka anagu midnimadaas oo waxa ugu qiimo badan ah baa Ilaahay nasi dhulkeena buuro waaweyn uma dhaxayaan dadka bada uma dhaxayaan wabiyaal uma dhaxayaan waa dhul falaado isku furan dadku meesha u shayso oo wadankan Djibouti walaalaha anahay laga soo bilaabo ilaa North East lug baad ku mari kartaa hadda la ku roon yahay dadaad af garanaysid oo aadan marna hadda marka waxa timid in la yiraahdo Soomaalidu been weeye ma midaysnayn waagan bagaas ku shaqeynay qol waxay tiri Soomaalidu isku diin ma had isku afna ma mana midaysan hatta isku diin ma waa qolo Soomaaliya waxaas hadda la bomboniyaasi dadku si kala tagaan laakiin dadka Soomaalidu waa hal family way intaas oo nicmo ah oo intii waa weynayd ah ayaa horta Soomaalida Ilaahay si waxa la yiraahdaa nicmada midna waa habaar bay kugu noqotaa midna blessing iyo ducay kugu noqotaa waxa moodaa anagu nicmadana inay habaar nagu noqotay ma sha Allah aad baa oo Soomaaliya kamid ah meel badan oo Soomaaliya kamid ah ka soo bilow waqooyi galbeed ka soo bilow waliba Boorama ka soo bilow Hargeysa meesha la yiraahdo Bulxaar markaad joogtid oo Berbera Hargeysa u dhaxayso dhinaca Berbera xeebta markaad martid waxaad arkaysaa meelo ceel caadi ah sida ceelashii caadiga ah oo kale oo daboolan waxa ku qoran ceelka dushiisa waxa ku qoran isku garanaysaa geedan dhir baa wili ka dhaxbaxday oo geesihiisa dhir badan ka baxday lama garan karo uu qarsan yahay uu dahsoon yahay laakiin ceelka afkiisa waxa ku qoran 710 oo far waaweyn ah 710 soo bax shabeellaha hoose markaad timaado waxa arkaysaa meelaha Kurtunwaare ay kamid yihiin iyo Sablaale area-deeda kamid yihiin jidad waxa jira jid Mareykan la yiraahdo ayaa jira oo jidadka caadiga aan ahayn ka intaas dhexdeeda ayaan waxa ku yeelan dhowr ceelo afka sibir lagaga xiray waay oo loo xiray
waxaa ku dul qoran asna ayagana waxaa ku dul qoran 710 jubbada hoose aad area Kismaayo ay area afmadow markaad tagtid dhowr meelood waxaa arkaysaa ay ku qoran tahay 710 haddaba adigu mid samee marka 710 dhanka kale ka soo istaago aqribal 710 erey ingiriisi ay noqonaysaa 710 marka dhanka kale laga soo istaago ereyga ingiriiska waxaa la yiraahdaa oil waa saliid ka hoos bixin waxaan u wadaa hadalkan daayirta cusub ayaan wadaa the new generation aan wadaa hadalkan sirtan inay ka hoos bixin 710 waxay macno leedahay mal laakiin marka dhanka kale ka soo istaagtid 710 waxay noqonaysaa oil bay noqonaysaa waa saliid in ka hoos bixin wala sii dabooshay maxaa loo daboolay gorgortan oo lala gorgortamayo dawladda xilligaas jirtay iyo dawladdii markaas joogta si loola gorgortamo sidaas la mid ah badda dhexdeeda ceelal kale ayaa jira waayo hadda badda muranka loo gelinayo markaas tagtid Yufle Cergaabo bay waxay u jirtaa 20 kilomitir u jirtaa Yufle markaad tagtid god baa ku yaala oo waxaa laga helay dhagax qolo geologistiyaal ee loo diray waagii dawladda 80 iyo 80aadkii dawladdii ciidanka militariga ahayd u dirtay waxaa laga helay dhagaxii gacan bini aadan caadi ah laguma qaban karo marka ninkii ugu horeeyay ee qabtay horuu ka sii daayay asagoo isla markaa qabtay oo sii daayay yaa halkan daldaloolada dhididka ka yimaada baa waxaa ka yimid dhiiggiisii ka soo daatay dhagaxa isaga ah markii qalab ay soo qaateen ay ku qabteen ay ku qaadeen qalabkii gacanta macnaha ka xigsadeen waxaa la aadiyey dhagax ka jamal yar oo gaaban oo meesha ku yaal ayaa sidaas loogu aadiyey jamalkii annagoo arkaynaayo laba u kala dhacay in hebelaa qoray magaciisiyaa qoray iyo buuggaasi ku taallaa maaha waa buruuf cad waa qofka doonayo halkaa tag dhagaxa isagaa wuxuu badbaadiyey uu joojiyey uu yareeyey uu joojiyey totally joojiyey diyaaradihii ayagoo iska socda iska qarxan jiray waayo diyaaradaha waxaa dhici jirtay diyaarad baa meel hebel ku qarxatay jabaan ku qarxatay hawada jabaan ay ku qarxatay hawada Canada ku qarxatay hawada magaciisa ku qarxatay waayo hawada marka xiliyaasha qaboobaha hawada waxay noqotaa condensed way noqotaa way adkaataa baraf oo kale ay isku ururtaa hawada markay isku timaado way adkaataa sida barafka ayay noqotaa kolkaa waxaa dhici jirtay diyaaraddu iska socota hawada malaysa wixii condensed ka ay ku dhici jirtay halkaa qarax ayaa dhici jiray diyaaraddu way qarxan jirtay maxaa wixii baabi'iyey maxaa harsiiyey dhagaxii isaga ahaa ayaa waxaa laga sameeyey rinjiga yar ee diyaaradda afka hore u marsan ee madow ayaa laga sameeyey hadda weliba waa caqliyeysano rinjiga madow waa bedela midabkii la doonaa laga dhigaa oo marna akhdaraa laga dhigaa marna cadaana laga dhigaa naftigiisii rinjiyaa laga dhigay dhagaxii macdanta ahaa maxaa loo mariyey markabka hoostiisa loo mariyey sida maraakiibta ayagoo iska socda barafka iska geli jiray iceberg ama dhagaxaanta iska geli jiray dhagax buu galay magaciisuu galay la oran jiray wixii waa yaraadeen waa baaba'een yaa reebay macdanta halkan laga helay ayaa reebtay macdantan weli way taallaa dadaa iska gurta dadaa lacaga macno laheena laga siistaa oona waddankan waxba ugu qaban daayirta dhallinyarada ee u dhalatay waddanka ee joogta ama ha maqnaato ama meel kale ku dhalo waddankaada u dhalatay beri waad imaanuun kana unbaad leedahay waxaad ogaataan macdantaasna waan leenahay ogaada xisaabta ku darsada xoolo iyo bad iyo kalluun keliya ma qabna anaga waxaan leenahay ogaada macdantaana waan leenahay shidaalka batroolka keliya maahan ogaada dhagxaantaana waan leenahay ogaada oo ilaa iminka laga faa'iidaystay adduunka dhan ka faa'iidaystay waayo diyaarad sil hawada kaligeeda iskaga qaraxda ma jirto at least